qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo uga qaybgelaya magaalada adis ababa kulan looga hadlayo ammaanka afrika xilli dowladda soomaaliya ay dagaal kula jirto maleeshiyada ururka al-shabaab. shirka sanadkan waxaa ka qaybgelaya madaxweyneyaal, mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid a hogaamiyaashii hore ee qaaradda afrika iyo hay-ada caalami ah. waxaana si gaara sanadkan loogu eegi doonaa shirka tana forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakamayn lahaa ama looga hortegi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda afrika. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda dalka iiraan iyo sababaha dhaliyey kacdoonka iyo rabshadaha muddooyinkan dambe ka taagan. waxaa dhacday in britain iyo ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka iiraan iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. barnaamijkii dhakhtarka weydiiya xubintii dooda gaaban iyo warbixinno kale oo caalami ah ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sheegay in weli ay suurtagal tahay in dib loo bilaabo saadka gaaska midooda yurub uu siiyo ruushku inkasta oo jiro khilaaf siyaasadeed oo aad u adag. ruushka ayaanan yurub siinin gaasta marta marinka loo yaqaano nord stream 1 tan iyo bishii agost. shaqada dhuumaha nord stream 2 ayaa iyaduna istaagtay kadib duulaankii ruushka ee ukraine. duulaankan oo bilowday bishii februari ee lasoo dhaafay ayaa horseeday sare ukac ku yimid qiimaha gaaska, waxaana la filayaa in qiimahaasu kordho inta lagu jiro xilliga jiilaalka. laakiin jarmalka waxa uu si dhaqsaha u diiday dalabka putin ee ah in uu dib u furo gaaska uu ku bixiyo ee la marsiinayo dhuunta lagu magacaabo nord stream 2. xubnaha baarlamaanka ciraaq ayaa gelinka dambe maanta kulan ku yeelanaya si ay u doortaan madaxweyne cusub. ciidamada ammaanka ayaa tallaabooyin adag ku soo rogay agagaarka deegaanka cagaaran ee caasimadda baqhdaad ka hor kulanka baarlamaanka ee soo socda. tan iyo doorashadii bishii oktoobar ee lasoo dhaafay, xoogaga siyaasadeed ayaa ku guuldaraystay in ay doortaan ra-iisul wasaare iyo madaxweyne. doorashooyinka ayaa wakhtigaasi lasoo agaasimay lagaga soo horjeeday saameynta ay ku yeesheen mawjado mudaharaadyo ah oo lagaga soo horjeedo musuq maasuqa baahsan, shaqola'aanta baahsan iyo kaabayaasha dhaqaalaha oo sii xumaanaya. boqortooyada sacuudiga ayaa diiday kuna sheegtay wax aan xaqiiqada ku salaysnayn dhaleecaynta ka dhanka ah go-aankii uu toddobaadkii hore qaatay ururka obek iyo ruushka ee uu ku dhimayo wax soo saarka saliidda. boqortooyada sacuudiga ayaa sheegtay in codsiga maraykanka uu ahaa in go-aanka dib loo dhigo 1 bil oo keliya, taasi oo saameyn xun yeelan lahayd sida ay sheegeen. madaxweyne joe biden ayaa salaasadii wacad ku maray inuu jiri doono cawaaqib ku yimaada xidhiirka maraykanka iyo sacuudiga kadib go-aankii obek ee toddobaadkii hore ay qaateen iyaga oo ku gacan sayray diidmada maraykanka. kooxda obek plus oo ka kooban dalalka shidaalka dhoofiya ee ururka obek iyo dalka ruushka ayaa toddobaadkii tegay ku dhawaaqay in ay dhimayaan wax soo saarkooda kadib toddobaadyo uu maraykanku waday arrintaas inuu isku dayayay in aanay sidaasi yeelin. dhimista obek ayaa washington ku abuurtay walaac ku saabsan suurtagalnimada ah in uu sare u kaco qiimaha shidaalka ka hor doorashada xilliga dhexe ee bisha noofembar, taasi oo xisbiga dimuqraadigu uu isku dayayo inuu sii xajisto maamulka aqalka wakiilada iyo kan sare ee senadka. wasaaradda arrimaha dibadda ee boqortooyada sacuudiga ayaa maanta xustay wadatashiyo ay la yeelatay maraykanka ka hor kulankii obek iyo ruushka ee 5 oktoobar, taasi oo lagu weydiistay in dhimista dib loo dhigo muddo bil ah. maraykanka ayaa ku eedeeyay boqortooyada sacuudiga inay isku dhiibtay ruushka oo ka soo horjeeda in dalalka reer galbeedku ay xadidaan qiimaha shidaalka. ruushka ayaa uga jawaabaya duulaanka ay moscow ku qaaday ukraine. bayaanka wasaaradda arrimaha dibadda sacuudiga oo soo xiganaya sarkaal aan la magacaabin ayaa adkeeyey in dhimista si buuxda ay uga salaysan tahay arrimo dhaqaale oo keliya. xiisada ka taagan bariga magaalada qudus ayaa cirka isku sii shareertay tan iyo markii nin falastiini ah oo la tuhunsan yahay inuu toogasho ku dilay askari israa'iili ah oo ku sugnaa bar kontarool oo laga galo xaafadda ay qaxootigu u badan yihiin ee shuwaafaad ee horaantii toddobaadkan. dhaqdhaqaaqa gudaha iyo ka bixista shuwaafaad oo ka mid ah xaafadaha isku raranta ah ee magaalada qudus ayaa la xadiday iyada oo ciidamadu ay raadinayaan qofka toogashada geystay.
rabshadaha wadooyinka ee habeennimadii xalay ayaa u muuqda in ay hoos u dhaceen saaka, iyadoo oo 10 kun oo dadka yahuudda ah ay ku qulqulayaan qudus si ay ugu dabaaldegaan fasaxa sokot, iyaga oo kusii dareeraya ama kusii socda bariga magaalada qadiimiga ah ee qudus oo inta badan u ah xudunta khilaafka Israa'iil iyo Falastiin. iskahorimaadka u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ayaa ka dhacay in ka badan 12 xaafadood oo ku yaala bariga magaalada qudus iyo weliba deegaanada Soomaaliga ee VOA. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya uga qaybgelaya shirka heerkiisu sarreeya ee Tana Forum ee looga hadlo arrimaha ammaanka qaaradda. Shirka Tana Forum oo sanadkan uu u dabaaldegaya sanad guuradii 10aad ayaa hogaamiyaasha Afrika ee lagu casuumo ay uga hadlaan sida looga wada shaqayn lahaa xal u helidda caqabadaha amni ee Afrika. Sanadkan waxa uu ku soo aadayaa iyada oo dowladda Soomaaliya ay dagaal xoogan kula jirto maleeshiyada Al-Shabaab. wariyaha VOA da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ka qayb galaya shirka looga hadlaya arrimaha amniga qaaradda Afrika ee madasha Tana Forum ee sanadkiisii 10aad ku qabsoomaya magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Sanadkan ayaa waxay Soomaaliya shirka tagaysaa dalka oo ay ka socdaan dagaalo ka dhana xarakada Al-Shabaab, isla markaana dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ay horey ugu dhawaaqday inay muhiimadda koowaad siinayso arrimaha nabadgeliyada iyo xasilinta qaranka. Xamse Cabdi Barre, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ayaa qorshuhu yahay in shirkan uu ka hadlo isaga oo diiradda saari doona howlgalladii amni ee ugu dambeeyey iyo qorshaha dagaalka dowladda Soomaaliya kala dhexeeya Al-Shabaab. Farxaan Maxamed Jimcaale, afhayeenka xukuumadda Soomaaliya, ayaa warbaahinta u sheegay ka hor inta uusan ra-iisul wasaare Xamse ka dhoofin garoonka diyaaradaha ee Muqdisho in shirkan Soomaaliya ay geyn doonto qodobo aad muhiim ugu leh dalka. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta ka ambabaxaya garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa waxa ay dalka Itoobiya ay kaga qayb gali doonaan shir caalami ah oo sanadkiiba mar la qabto oo la yiraahdo madasha Tana Forum oo si gaar ah looga hadlo dhibaatooyinka amniga ee soo wajaha qaaradda Afrika. shirka sanadkan waxaa ka qayb galaya madaxweynayaal, mas'uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah hogaamiyaashii hore ee qaaradda Afrika iyo hay'adaha caalami ah. waxaana si gaar ah sanadkan loogu eegi doonaa shirka Tana Forum in laga hadlo oo la falanqeeyo bal sidii loo xakameyn lahaa ama looga hortagi lahaa khataraha soo wajahaya qaaradda Afrika. ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo la filayo in shirka uu khudbad ka jeediyo ayaa waxa uu kaga hadli doonaa dhibaatooyinka xagga amniga ee haysta dalal fara badan oo qaaradda ah oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo si gaara ula dagaalamaysa kooxda xag jirka ah ee argagixisada ee Al-Shabaab oo dowladda Soomaaliyeed iyo waliba shacabka oo isku duuban hadda ay doonayaan sidii loo dabargoyn lahaa oo wadanka looga ciribtiri lahaa. Dhinaca kale, Farxaan Jimcaale ayaa sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu kulan ducaadyo la yeelan doono inta uu Addis Ababa joogo madaxda kale ee Afrika ee shirkan ka soo qayb galaya, isla markaana uu kala hadli doono danaha Soomaaliya, si gaara dagaalada dowladdu ay kula jirta Al-Shabaab oo hadda xukuumadda Muqdisho ay siinaysa muhiimadda ugu weyn. shirka oo dhowr maalmood socon doona, inta uu soconayo waxaa ra-iisul wasaaruhu uu kulamo gaargaara la yeelan doonaa mas-uuliyiinta iyo madaxda qaaradda Afrika ee ka qayb galaysa
oo si gaara ugala hadli doono sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada oo meelo fara badan oo qaaradda ah dhibaatooyin ku haya. madasha Tana Forum ee ka dhacaysa Addis Ababa ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha amniga ee qaaradda. Si gaara waxaa loogu soo bandhigi doonaa waxyaabihii ugu dambeeyay ee ku soo kordhay qaaraddan. Ethiopia oo qudheeda dalkeeda lagu shirayo waxaa waqooyiga waddankaasi ka taagan dagaallo u dhaxeeya jabhadda Tigreega iyo dowladda, waxaana ka jira xaalado bini'aadanimo oo aad u culus, halka Soomaaliya dagaalada hadda lagula jiro Al-Shabaab ay yihiin waxa ugu weyn ee hor yaalla dowladda uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdicasiis Barrow, VOA. halkaan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. khamiistii lasoo dhaafay waxaa qarqantay dooni 50 qof oo 40 ka mid ah ay Soomaali ahaayeen, taasoo ku qarqantay dalka Giriiga, gaar ahaan magaalo xeebeedka Mytilene oo ku taala jasiiradda Lesbos. Inta iminka la xaqiijiyey, sida idaacadda VOA u sheegay wiil ka mid ah dadka badbaaday 18 qof dad ku dhow ayaa dhintay, halka gabdhaha dhintay ee ay 20 gaari karaan sida warar hore lagu helay. mustafe faarax cabdulaahi waxa uu ka mid yahay dadka soo badbaaday oo ku sugan magaalo xeebeedka Mytilene. wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu uga waramay sida ay doontu u degtay iyo halka ay ku degtay. waxaanu marka hore ku bilaabayaa magaciisa. magacayga saddexaad waa mustafe faarax cabdulaahi walaal. mustafe, imika oo aan kula hadlaya halkee ayaad joogtaa? hadda waxaan joogaa walaal dalka Giriiga. ka xaggee? jasiiradda Lesbos lahaa magaalada Mytilene. waa tahay mustafow, goormo ayaad ka soo baxdeen dalka Turkiga? magaaladeesa ayaad ka soo baxdeen? walaal dalka Turkiga waxaan kasoo baxnay 5tii bisha oo ku beegnayd habeenkii Arbaceed. waxaana kasoo baxnay magaalada Izmir lahaa. imisa habeen ayaad kusoo jirteen iyo maalin badda gudaheeda? hal habeen keliya kusoo jirnay, halkii habeen ay doontu dhacaysay. bal iiga waran sida ay doontu u dhacday, iiga waran mustafow. walaal doontu waxay u dhacday, doontu waxaa lagu saarnaa tiro aada u badan 40 ilaa 50 qof. kadib maxay ahayd inay baduna aad bay u kacsanayd oo 3 mitir bay kor u kacsanayd. kadib maxay ahayd inay biyihii Turkiga mahaan kasoo gudubnay, biyihii Giriigaan usoo gudubnay. xaaladdu way adkaatay oo baddu saaid bay usii kacday. kadib markaan cabaar soo soconay, maxay ahayd inay motoorkii waxa aanu kusoo soconay, motoorkii iska dhaminay bay hirkaan kusoo soconay. waxaa soo gaarnay dalkii Giriiga. waxaan rabnay inaanu meel banaana ku xidhanno. kadib maxay ahayd inay meesha waan arki weynay. buur bay markaa bahashu nagula dhacday. buurtii markay nagula dhacday, tiyuubkii baa qarxay. looxii lagu fadhiyeyna wuu jabay walaal. imise qof ayaa markaas doonta ah ku saarnaydeen? imise qof ayaa markaa dhintay oo aad adigu mustafa ahaan noo sheegi kartaa? walaal waxaa maxay ahayd inay doonta aan ku saarnay 40 qof ilaa maxay ahayd in 50 qof aan ku qiyaasayo. haddana weli baaritaankii uu socdaa oo inta meesha la badbaadiyey ee nolol lagu soo gaadhay iyo inta meydka la helay, maxay ahayd inay way yaalaan, hadda way joogaan. marka waxaa la raadinaya, weli baaritaanku uu socdaa, lama xaqiijin dhimashada inta ay tahay. hadda 18 ilaa 20 lagu qiyaasayaa. inta timidayna waxaa lagu qiyaasaya ilaa 30 qof. waa tahay dadkan dhintay waxa aan maqalay inay gabdho Soomaaliyeed u badan yihiin. arrinkaas maxaa ka jira? gabdho u badan yihiin. hal wiil keliya ku jira oo dadka meydka hadda ku jira, inta kale waa hablo. oo kaas walaal. meydka iminka xaguu yaallaa? hadda meydku meel u yaalla ma garanno. annaga dadka lasoo badbaadiyey baanu ku jirnaa. maxay ahayd in hadda lagu hayo kaamka. weli maxay ahayd inay dadka meydka meesha ay yaallaan weli nooma xaqiijin. maxay ahayd inay waxaan rabnaa dadka inaan ogaano oo dee dad famila ku jiray, dad asxaaba ku jiray, inaan dee waalidadoodii iyo familadii ay ka maqnaayeen u bandhigno oonu ku nidhaano qofkaasi dee u dhintay ama uu nool yahay u xaqiijino ayaa rabnay. weli laakiin lanama ogolaan in maxay ahayd in lana tuso wejiyadooda. waa tahay intiinan iminka bad qabta ee lasoo badbaadiyey imsaad tihiin? hadda ilaa 30 qof waa nahay. ma Soomaali baa 30 qof? haa. waa tahay mustafe, markaa intiina soo badbaaday imisaa gabdha ah imisaana wiilala? walaal waxaa wiilalahaa 13 maxay ahayd in raga iyo 17 maxay ahayd dumara. da-dooda miyaad garanaysaa mustafow? inta ay u dhaxayso qiyaastii? da-du dee waxay udhaxaysaa 20 ilaa 25.
xaalkiina waa sidee iminka? xaalkaygu wuu fiicayay boqol alxamdulilah. intii ilaahay kasoo badbaadiyey weeyey aad baynu u fiican yihiin oo lala tacaalay intii xanuunsanaysa hablahana. yaad la kulanteen ilaa iminka hay-adaha ka shaqeeya samafalka, hay-adaha ka shaqeeya qaxoontiga ma idiin yimaadeen? waan la kulanay. hay-adda waxaa noo timi caafimaadka ee lagu magacaabo MSF. haddana waxay gacantooda noo gelisay nagu wareejisay hay-adda UM. kaasi waxa uu ahaa mustafe faarax cabdulaahi oo ka mid ah soomaali muhaajiriina oo ka badbaaday doon khamiistii ku degtay xeebaha Greega. wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayuu u waramayay. dhinaca kale, warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in muhaajiriinta soo mara liibiya loo geysto xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadamaha ah si loogu qasbo wax loogu yeedhay barnaamij loogu kaalmaynayo sidii ay dalalkooda ugu noqon lahaayeen. liisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva. Ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo jeedinaya. qorayaasha warbixintan ayaa sheegay in muhaajiriinta ku sugan liibiya ay yihiin kuwo ku xandhiban oo ku jira xaalad murugo leh. waxay sheegeen in lagu qasbo inay kala doortaan inay ku noqdaan waddamadii ay dhibaatada iyo amni xumada ay uga soo carareen iyo in ciqaab joogto ah ay kala kulmaan liibiya. warbixintu waxay sheegtay in dadka muhaajiriinta ah lagu qasbo inay aqbalaan barnaamij looga caawinayo inay dalalkooda dib ugu noqdaan iyaga oo ka baxsanaya gaboodfallada lagu geysto xeryaha lagu hayo. warbixinta qaramada midoobay waxa ay sheegtay in xadgudubyada dadkan lagu hayo ay isugu jiraan hanjabaad joogto ah, jirdil, kufsi iyo baad. afhayeen u hadashay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Ravina Shamdasani ayaa sheegtay in mashruuca dadkani ka caawinaya dib ugu noqoshada dalalkii ay ka soo carareen mabda ahaan loo abuuray inuu noqdo mid dadka ay si iskooda ay u soo raadsadaan. However, the report finds that in reality, many migrants in Libya are unable to make a truly voluntary decision to return in accordance with international human rights laws and standards. warbixintu waxay ogaatay in kuwo badan oo ka mid ah muhaajiriinta libiya ku dhibaataysan aysan go'aan keligood gaari karin, gaar ahaan marka ay timaado in dalalkooda lagu celiyo iyada oo aan la qasbaynin. qasabkaasna waa mid ka hor imaanaya sharciga caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. badankood dadkaasi ma haystaan waddo kale oo aan ahayn in dib loogu celiyo isla xaaladii iyo duruufihii ay ka soo baxsadeen. qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in qiyaastii 600 oo kun oo muhaajiriin ah oo ka soo kala jeeda ilaa iyo 40 waddan ay ku sugan yihiin xeryaha liibiya. dadkaasi waxaa ku jira 43 kun oo qof oo loo diiwaan geliyey qaxootinimo iyo magangelyo doon. tan iyo sannadkii 2015 qaramada midoobay waxa ay sheegtay in muhaajiriin ka badan 60 kun lagu celiyey dalal kala duwan oo ku yaala Afrika iyo Asia, waxaana lagu celiyey mashaariicda lagu sheego ka kaalmaynta muhaajiriinta dib u noqoshada. warbixintii liisa shlein waxaana la socodsiinayay Ibraahim xasan daanduri. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee VOA. ayaa ka mid ah dalalka ugu saamaynta badan bariga dhexe, isagoo ka mid ah dalalka hodanka ku ah shidaalka. kasokow khayraadka dabiiciga waxa uu dalka Iiraan leeyahay taariikh fog oo siinaysa miisaan siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain. taariikhda dalka Iiraan ma aha mid lasoo koobi karayo. dalka Iiraan waa dal aada u taariikh dheer, kana mid ah dalalka ugu boqortooyada dheeraa ee soo maray caalamka. waxaan ogsoonnahay boqortooyadii Persia ama Farsiyiinta sida loo yaqaano in ay dalkaasi kasoo talinayeen muddo ku dhow 2500 oo sano. waxaan ogsoonnahay dalka Iiraan in uu soo maray maamulo siyaasadeed oo kala duwan, halbowlena uu ahaa helitaankii saliidda bariga dhexe, taa oo isaga naftiisa ku ahayd caqabad keentana in quwadihii dagaalkii koowaad iyo kii labaad bay isku hayay caalamku ay hungureeyaan ka intifaacsiga ama ka faa'iidaysiga saliidda uu qaniga ku yahay dalkaasi. waxaa dhacday in Britain iyo Ruushkuba ay ciidamadoodu qabsadaan dalka Iiraan iyaga oo loolankooda ama orodkooda uu ahaa sidii ay gacanta ugu dhigi lahaayeen anfaca iyo faa'iidada
saliidda uu dalkaasi qaniga ku yahay. waxaa dhacday in xitaa maraykanku uu soo farageliyo siyaasadda dalkaasi, noqdana in uu hormood u noqdo wadamada hunguriyeynaya in uu maamulo siyaasadda dalka Iiraan. ugu dambeyn dalkaasi waxaa gacanta ku dhigay boqortooyadii u dambeysay ee lagala wareegay ee uu madaxa ka ahaa Mohammed Rasiq Khan, isaga oo siyaasad ahaan u jeerjeersaday dhinaca reer galbeedka. waxaa dalka ku soo kordhay aadna ugu soo batay dadka reer galbeedka ah oo ay aada uga xumaadeen wadaadadii kasoo horjeeday siyaasadda reer galbeedka iyo calmaaniyadda. taasi ayaa waxa ay aada sare ugu qaaday kacdoonka kasoo horjeesiga maamulkii Mohammed Rasiq Khan oo waqtigaasi ka talinayay dalka. ugu dambeynna waxa ay keentay inuu dalka isaga cararo. revolutionkii waqtigaasi dhacayna uu maamulka gacanta u geliyo wadaadadii dalka rabay in ay ka qaadaan siyaasadda reer galbeedka. taas ayaa u ahayd hormood keentana in Iiraan uu revolutionka dhaco. haddaba sidee ayuu ku yimid kacaanka islaamiga ah ee Iiraan? maxayse ahaayeen waxyaabaha soo dedejiyey guusha kacaankaasi? waxaa arrintaasi sharaxaad ka bixinaya cabdicasiis saalax cumar oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka. kacdoonka islaamiga ah ee ka dhacay dalka Iiraan 1979kii waxaa la tilmaamaa inuu xooggiisu soo bilowday 1975kii, iyadoo markaa wadaadkii Khumeyni oo dalka kaga maqnaa masaafuris uu dibadda ka soo dirayey cajalado kaaseed oo dhegeysi ah oo runtii raad weyn ku yeelatay dadka oo aada loo dhegeysan jiray, isagoo dadka dhiirigelinayey, kacdoonkaana ku dhiirigelinayey. cajaladaha oo si qarsoodiya uga soo gelayay xuduudda Ciraaq oo ahayd meeshii u horreysay ee uu u cararay ama loo masaafuriyey wadaadkaasi, isagoo kadib markii dambe uga sii gudbay dalka Faransiiska uu deganaa oo cajaladaha uu kasoo duubayay. waxaa aasaas u ahaa 3 qodob oo dadku ay inta badan ku dhawaaqayeen ama maaragtay kacdoonkaasi ay dalbanayeen. 3daa qodob waxay kala ahaayeen waxa la yidhaahdo madax banaanida, iyagoo markaa dadku ay u arkayeen inayna Iiraan ay meel la haysato ay tahay, maadaama hantidoodii iyo batroolkoogii iyo waxoogii oo dhan ay wadanada reer galbeedku iskaga tarkifalayaan. ninkan meesha hayste shaaha ama boqorkan meesha xukumana uu iyaga gacan saar la leeyahay. dadka dad madax banaan dalka umay arkaynin, marka madax banaanidu kow waxa u horeeya dalbanayeen bay ahayd. midda labaad waxay xorriyad, inay maaragtay xorriyad helaan ayay dalbanayeen. ta saddexaadna waxay jamhuuriyad islaamiya inaa meesha laga aasaaso. 3daa qodob baa aasaas u ahaa. marka ay xaaladdu saa tahay, ninka meesha ka xukumayey Maxamed Rida Pahlawi la odhan jiray, oo ah boqorkii u dambeeyey boqortooyada kasoo talinaysay muddada 2500 ahayd dalka Iiraan, ayaa isaguna wuxuu isticmaalayay awood iyo caburis iyo cadaadis, isagoo markaa sirdoon lagu magacaabayay Fasika oo aada u awood badnaa lahaa, ayaa maaragtay caburis bilaabay dadkii maaragtay in gaar ahaan inuu maaragtay gacanta ku dhigo saxaafadda oo uu arkayay markaa inay raad weyn ku leedahay kicinta bulshada. ayuu maaragtay saxaafadda inuu caburiyo, gacanta ku dhigo, dadka la xidhxidho, la dilo, cadaadis badan ayaa meesha yimiday. taasoo keentay markii dambe inay saxaafaddu ay shaqo jooji samayso, oo layska hor yimaad badan u yimaado, isagoo isku dayay xataa mar in wadahadal la galo ay shaqayn weyday. si kasta ha noqoto, marba mar ka dambeysa waxaa sii xoogeysanayay kacdoonkaas, ilaa markii dambe 1979kii uu arkay boqorkaas inay maaragtay arrintu sii soconaynin, iyadoo markii dambena ay hadda dibadda u baxdo saxaafadii reer galbeedku ay yimaadeen oo aada wax looga qorayay maaragtay. inkastoo isagoo gacansaar la lahaa madaxda, laakiin haddana waxa weyaan saxaafaddu waxay aada uga qoreysay cadaadiska badan oo dadka ku hayo, waxyaaba badan bay ka qorayeen. marka arrintiisii markii ay kacdoonkiina kusii batay, wuxuu go-aansaday marka 1979 inuu iskaga baxo dalka oo uu tago wadanka Masar, walka uu haajiro. sidaan ay kusoo gabagabowdo boqortooyadii 2500 kasoo talinaysay dalka, iyadoo markaa uu kusoo noqday wadaadkii Khumeyni dalka Faransiiska uu kasoo noqday, isagoo diyaarad Faransiisa lagu sido, si weynna loogu soo dhaweeyo. halkaana maaragtay ay ka asaasantay jamhuuriyaddii islaamiga ahaa ee Iiraan. Iiraan ayaa waxaa toddobaadyaddan u dambeeyey ka socda banaanbaxyo rabshado wata oo ka bilaabmay geerida gabadh lagu magacaabo Mahsa Amini, oo ay booliska anshaxa ee dalkaasi u xidheen sababo la xidhiidha xidhashada xijaabka, iyada oo geeriyootay iyadoo ku jirta gacanta booliska.
dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in gadoodka iyo rabshadaha haatan ka taagan iiraan aanay sabab u ahayn oo keliya arrimaha xijaabka, balse ay jiraan sababo kale oo isbiirsaday iyo dhallinyarada dalkaasi oo iyaguna door ku leh kacdoonka haatan taagan, sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya. mudaharaadadan waxaa keenay waxyaabo badan oo isbiirsaday oo wadanka muddo dheer kasoo taagnaa. iminka marka laga eego guud ahaan waxaad moodaa inay ka bilowdeen gabadhii Mahsa ee maxay ahayd booliska anshaxa dhinaca diinta ee dalka Iiraan la sheegay inay gacantooda ku baxday, laakiin waxaad moodaa inay markii horeba oo ahaa dab hulaaqayay oo markii dambena isqabsaday holociisu oo ku faafay dalka Iiraan oo dhan, oo markaa dambena maxay tahay looga dhigay halhays dhinaca xijaabka. laakiin wax ka weyn weeyaan arrimahan. waa arrimo ku lug leh dhinaca siyaasadda ee wadanka, waa arrimo ku lug leh dhinaca dhaqaalaha wadankaas oo dadka reer Iiraan intiisa badan ay yihiin dad la sheego faqri ku nool. waa arrin lug ku leh dhinaca arrimaha bulshada iyo weliba doodaha dhinaca diinta ee wadanka ka taagan. marka arrimahaas oo isbiirsaday ayaa saldhig u ah mudaharaadadana iminka uguma horeysa kuwa kaloo ku horeeyay oo waliba ka baaxad weynaabaa jiray kuwii 2017 baynu aragnay. marka nidaamkan iminka joogaana dee markii horeba isaga ku yimid mudaharaadadan oo wadanka kula wareegay, marka baahiyo badan oo ay dadku tabayaan oo dhinaca nolosha ah, oo dhinaca nabadgelyada lafteeda iyo dhinaca maxay tahay xorriyadda qowlka iyo siyaasadda ayaa kamid ah. marka la eego dhinaca dhalinyaradu waxay ku eegayaan il saluug bay ku eegayaan, waxay ku eegayaan oo ay doonayaan il isbedel, waxay ku eegayaan il maxay ahayd toy ay iyagu arkaan inaanay waqtiga la jaan qaadi karayn nidaamkan, oo arkaan mid duugoobay marka la eego habdhaqankiisa iyo maxay ahayd sida wadanka looga noolyahay. waayo dadka dhalinyaradii waa dadka mujtamaca reer Iiraan ugu badan oo iminkana intii dambana maxay ahayd afkaartoodu aada moodeysay inay maxay ahayd kasoo dheeganayeen afkaaraha reer galbeedka oo dhinaca maxay ahayd xorriyatul qowlka iyo furfuraanshaha ay halkaa maxay ahayd ay u janjadho. markaasaa darteed bay nidaamkan u arkaan midaan arrimaha la janqaadi karaynin oo ku adag xorriyatul qowlka iyo afkaarta dadka. sidaa darteed waxay ku eegayaan dhalinyaradu nidaamka hadda taagan iyo maamulkooda ay wadaadada duubweyntu ay maxay tahay hogaaminayaan mid aan waqtigan la jaan qaadi karaynin oo maxay tahay saluug badan ay ka muujinayaan. inkasta oo kacdoonka iyo rabshadaha Iiraan ka socda ay ka bilowdeen arrimo la xidhiidha xuquuqda haweenka iyo xijaabka, haddana waxaa rabshadahan oo maalinba maalinta ka dambaysa kasii daraya ay u muuqdaan inay ku biirayaan qaybo kala duwan oo bulshada ah oo qaba cabashooyin kala duwan, sida uu marka la sharaxayo cabdicasiis saalax oo ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan Maraykanka. mudaharaadku inkastoo maalinba maalinta ka dambeysa uu sii ballaadhanayo oo kolkii hore wuxuu ka bilowday dumar ayay ahayd, hadda waxaa ku biiray ardaydii, waxaa ku biiray maaragtay qowmiyaad kale. gabadha qowmiyadda kurdiga ka dhalatay marka magaaladeedii iyo kurdida ka bilaabmay, hadda iminka qowmiyaadkii fursiga iyo carabtii ayaa ku biiraya, iyadoo uu sii ballaadhanayo oo maaragtay banaanbuxu maalin ka dambeysa. haddana mar walba waxaa hor istaagan nidaamkan Iiraan oo runtii nidaam aada u adaga dhinac walba, hadday sirdoon noqoto iyo hadday noqoto maaragtay ka hortaga arrimahan oo kale khibrad weynna u leh, hadday noqoto arrimaha dibadda kaga imanaya ama weeraro ha noqoto ama maaragtay cadaadis iyo cidhiidhi kaga yimaada dibadda ha noqoto ama gudahaba. horeyna taariikh ahaanna waxaa la ogyahay inay arrimo badan oo noocan oo kale ay aada uga hortageen. hadday noqoto gudaha kacdoonkii 2019 ka dhacay doorashooyinka, sidoo kale waxaa dhacday 2019 kacdoonkii ka dhashay maaragtay nolosha qaaliga markay noqotay gaaskii qiimihiisu kor u kacay. kacdoonkii ka dhashay iyadana waa la ogaa in maaragtay ay caburis iyo cadaadis dowladdu saartay. markastana waxay haystaa kaarar ay adeegsanayso oo maaragtay in dadkan hadda banaanbaxyada sameynaya laba arrimood inay ku eedeeyaan. mid waa mid inayna banaanbaxyo nabadaysan una ahayn oo ay wax kharibayaan oo amniga kharibayaan oo ay rabshado iyo meelo ay jabiyaan iyo ay sameynayaan dad maaragtay dalka kharibaya oo amni darro u horseeday dalka inay yihiin inay u sawiraan waa kow. tan labaadina inay yihiin dad dibadda laga soo
dibadda xidhiir lale oo maadaama mar walba halhayska dowladda iiraan u tahay cadowgu inuu reer galbeedku cadowga koowaad ee iiraan yahay, gaar ahaan maraykanku uu yahay, waxay dadkan u sawiraan banaanbaxayaasha dad maaragtay laga taageerayo ama laga wato ama laga hagayo dibaddaas laga hagayo oo u adeegaya lagu adeeganayo dadkaas cadowgeenna uu ku adeeganayo labadaas kaarbe ay adeegsadaan. saas darteed way adag tahay saadaalintu maaragtay banaanbaxyadani saameynta ay yeelan karaan iyo inay guulaystaan way adag tahay, waayo nidaamka iiraan gaar ahaan ilaalada jamhuurigu waxay awood u leeyihiin, khibrad u leeyihiin inay mar kasta caburiyaan, ka hortagaan kacdoodana noocana. habase haatee laakiin haddana haddii caburiska iyo cadaadisku sii bato oo maaragtay qowmiyaadka iiraan iyo mujtamaca qaybihiisa kala duwani ay u dhannaadaan, waxaa suurtagala in cadaadiskaasi uu shaqayn waayo oo maaragtay uu mudaharaadku sii bato oo nidaamku sidaas halis ku galo. marka